waxaa noo calool galay bay tiri ilmihii ugu horreeyey Suhaybay aad baa ugu farxnay jawi heer saraha baan galnay maalintaasi ilmuhu calool galay waxa weeye aad buu u farxay isagu markii ilmuhu uu kala bar soo gaaray calaashaan da'da ilaa caloosha intuu ku jiray 5 bilood meelaha 4 bilood ilmihii wuu halaabay calaashaan wuu soo laabtay ilmihii labada calool galay Suhaybay 4 bilood 5 bilood markuu maraayo isagana tabti waa soo laabtay waxay dhahday mar allaale iyo markii soo laabashadaasi ay dhacday ayaa waxaa ii bilowday kadeed adduunyo waxaa ii bilowday waji bedel waxaa ii bilowday maxaa khaldan waxaa ii bilowday xisaabtan waxaa ii bilowday gafuurtaag iyo ma aragtay wax aanan garanaynin hooyadii faraxsanayd hooyada gurigeyga saacad u imaan jirtay walaalihii saacad u imaan jiray waaba la kala dhuntayba kadib waxaa dhacday bay tiri wuxuu yiri hooyaday waxay igu dhahday qoftan labad mar dhicistay warkeeda ha igu soo qaadin gabar kale oo in adeerta ah baan kugu dareynaa waxay tiri waxaan filay Suhaybay in waxani ay tahay wax aan negotiate ka geli karno oo aan ka doodi karno laakiin almost waa wax la soo qaabeeyay oo la soo dajiyay oo gurbaankii uu dhiman yahay iyo meherkii iyo Allah isku calfo ay dhiman tahay waaba diyaarba wixii oo dhan dulmiga ugu badan dumarka iyaga isku geysta adigaana ka dhawaajiyay qisadan hadda aan soo qaadanay nabarka ugu xoogan wuxuu ka socday hooyada nabarka labaad wuxuu ka socday gabadha nabarka saddexaad wuxuu ka socday markaa ninka number 3 baan gelinayna asaga because of maskaxdiisa waxaa rogay hooyadiis waa qof dumar ah gabadhan yariista oo halkan joogtana waa dumar kale meesha ay u damqan lahayd saacidi lahayd cunugta yartaa caafimaad geyn lahayd hooyo macaan hadday wax kaa halaabeen dhib ma laha waa hagaagaysaa dhihi lahayd mid kale oo inaadeertiisa soo qabatay qofka kale ee saddexaad ee lasoo qabanayo waa dumar kale waxaan nahay quruxda gurigaada xafiiskaada goobtaada ganacsi ha ka reebin xitaa masaajidada iyo goobaha cibaadada waan qurxinaa ha ka guurin gurigaagii foolxumaa hana ku wareerin casriyeynta kaaga cusub ee u wakiilo Zaymer Interior Solutions waxaan ku haynaa naqshadaha kala ah WPC panel flutes PS3D panel SPC marble sheet acoustic panels SPC flooring engineering wood iyo kuwa kale tayadeenu waa xaqiiq qiimeynteenu waa dahabi muhiimadeennuna waa qanacsanaantaada fiiro gaar ah haddii aad tahay designer waxaan kuu haynaa fursad gaar ah iyo qiimo gaar ah nagu soo booqo xarunteena oo ku taala BDL Complex City Cabanas Mombasa Road ama nagala soo xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda maanta barnaamij xiiso leh ayaa idin wada Ibrahim Haye horay u gal waqtiyadayda ka mid ah oo aan runtii markaas aan shaqo ka baxay oo maskaxdu jaam tahay jawigaygu fiicnayn markaasna aanan u diyaarsanayn ama in wax layga dhageysto ama inaan wax dhageysto marmar waxaa jirta moogta aad jaam iska gelayso oo aad u baahan tahay ama inaad iska nasato ama inaad iska seexato ama inaad maaragtay nasato ayaa waxaa isoo wacay gabar telefoonkiisa WhatsAppka iyo la soo hadashay ma qaban mar labaad isoo wacday ma qaban markii saddexaad ayaa waxaan arkay fariin kor aan ka arkay oo ay leedahay badbaada u baahanahay ilaahay waa badbaadahaye waxaan isiri qofkan jaamkaaga ma ahanay qofkan badbaadada u baahan la hadal qofku yahay rag iyo dumarba war qofkan bal badbaado dee dhakhtarna ma tihidi waxa kule badbaadinaysid bal qayb ka noqo oo ajarso oo jaamkaaga ma ahanay bal jawaab waa u jawaabay immediately markay aragtay inaan qoraal u qorayo waabay soo wacday way sugi weyday telefoonkaan ka qabtay gabar bay noqotay marka maxaa telefoon u qaban weyday maxaa waxba lama isan gelin durba waxay igu dhahday faadi ma tahay oo waqti ma haysaa aan iskula hadalno waxaa ku dhahay dabcan haa maxaa khaldan maxaa dhacay marka
sohibay waxaa jirta marxalad qofka caadiga ah codkiisu waa caadi laakiin qofka buuqa ku furan yahay cabsi iyo wax dareemaya maskaxdiisu ay mashquul badan tahay oo culays badan uu saaran yahay codkiisu waa gogo'aya asagoo kula hadlaaya ayuu haddana codkii waxaad moodaysa qofkaas inuu shigshigaayo codkii waa gogo'aya marka waxaa ku dhaha walaal codkaaga waa gogo'ayaaye khadka miyaa kaa xun waxay u tiri khadka igama xuma khad igama xume anigaa xun macnaha anigaa xumaan badan dareemaya oo anigaa xun maxaa kugu dhacay walaashay soo dhawow waxay tiri niyow arrin baa rabaa inaad igala talisaan waxaan dareemayaa wax aad iyo aad u dhib badan waxay tiri aniga gabar yar oo aan guursan baan ahaa familkeeda iyo qoyskeeda iyo ehelkeeda la nool farxad iyo nolol fiican haysata jawigeedu degan yahay nolol fiican ku nool walaalaheed iyo dadkeeduba koolkooliyaan boqorad guri ka ahayd kadibna ilaahay wuxuu calafay inaynu qof nin raga oo raggiisa ka mid ah aynu isbaranno raggkayga iga soo doonto si sharaf leh oo fiican oo qurux badan doonisteedu u dhacdo gurkayga u dhaco kabaxdina nolol ayaan sidaas ku samaysanay waxyaabaha ay waalidkii iyo gaaraan hooyada igula talisaa waxay ka mid ah betri gacantaada ha ka hagaran ninkaaga calashan waxaan u fahmay inay ula jeedeen cunto fiican u kari caraftaada macnaha carafta guriga ku dadaal idan dardaaran idan la-aantiis ha bixin wixii hooyaday ee ii qortay oo dhan bay tiri oo ii sheegtay oo aan noodgaraysta kulli waa fuliyey ninkayga waa ixtiraamaa waan dhegaystaa waan ka warhayaa allahu mustacaan warkuu ii sheego waan qaataa hadduu yidhaahdo niyahow hadduu yidhaahdo ha bixin ma baxo waxaasna iskuguma mina inaan imaan bay tiri nolol fiican oo qurux badanaa noo bilaabata jawi fiicanuuna ku jiray asagu waxaa noo calool galay bay tiri ilmihii ugu horreeyey sohibay aad baa ugu farxnay jawi heer saraha baan galnay maalintaasi ilmuhu calool galay waxa weeye aad buu u farxay asagu allaha mustacaan bululeer la rido iyo allaha mustacaan xaflad yar la sameeyo iyo saxaabtiisi iyo asxaabteydoo yimaada iyo waxay tiri waxaanan garanayn buu i dhexgeliyo oo farxada aad baa ugu farxnay waxay tiri farxadda anagu ku jirna maalin walbaahiba maalinta ka horeysa maalinta ku xigtaba aan jawi fiican galayo oo sida maaragtay igu faraxsan yahay ayaabaysid oo hooyadiis iisoo wacayso oo walaalihiis oo maalinba meel laiga casumayo anna aan qof iska maaragtay waad garanaysaa bilowga hore dumarku aad bay ugu xanuunsadaan uurka anna aan haddana waxay tiri familka farxadooda aan ixtiraamayo haddana aan yara dhibsanayo ayaa waxaa dhacday bay tiri markii ilmuhu uu kala bar soo gaaray calashaan da'da ilaa caloosha intuu ku jiray 5 bilood meelaha 4 bilood ilmihii wuu halaabay calashaan wuu soo laabtay cilad baa dhacday I don't know ilmihii muxuu ahaa adiga ma doonaya inaan sii faahfaahiyo laakiin ilmihii wuu soo laabtay isbitaal baa la geeyey waa muxuu ahaa badbaadadeeda la qaatay jawigaasi waxay tiri xoogaa farxaddii iyo gurbaantunkii bululeerkii xoogaha buu yareeyey niyad jabaa yimid laakiin waxay tiri wax oo laga sii socday bay noqotay laakiin laysma weydiinin ciladda maxaa keenay laysma weydiinin muddo markii la joogay bay tiri markaska Arisaale Islamic Center Online waxa ugu bishaaraynaya dhammaan waalidiinta Soomaaliyeed ee caruurtoodu ay qurbaha ku nool yihiin inuu idin diyaariyo barnaamij waxbarasho oo diini ah oo dhameystiran sidoo kale markasku waxa uu leeyahay qayb gaar ah oo loogu talagalay dadka waaweyn iyadoo lagu barayo hab casri ah oo online ah markasku waxa uu si qoto dheer ku barayaa Qur'aanka Kariimka ah tajwiidka iyo hagaajinta akhriska Qur'aanka ahadiista Nabiga sallallahu alayhi wasallam aqeedada islaamka fiqiga iyo ahkaamtiisa
faa'iidaysa siirada nebiga sala allahu calayhi wasalam, adkaarta iyo anshaxa islaamka, ku hadalka iyo fahamka luuqadda carabiga. tirada ardayda la qaadanayo waa ay kooban tahay si loo xaqiijiyo waxbarasho tayo sare leh iyo dabagal joogto ah. fadlan hadda isdiiwaangeli oo qabso booskaaga inta aysan tiradu kaa buuxsamin. wixii faahfaahinaa kala soo xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda. khayr kala yimid haddana kii labaad ba haddana calool galay. meeshii baa gurbaankii ka bilowday iyo farxaddii iyo laakiin laysma weydiinin bay leedahay ciladii hore waxa keenay. kii labaad farxaddii iyo aniga waxay tiri iga yareeyaan ku yidhi farxaddaan un waxaad samaysaan duco inuu ilaahay noo adkeeyo duco ah gala aan galno. waxaabani iska dhaadhiciyey bay tiri ilmahaagii hore waxaa ku weyday bululeyradan iyo dhaqangaaleedkan iyo waxaan la samaynayo bay isdhahday. war waxaas amni dhaqankii gaalada iyo beladaasa ilmaha midhaayo aan iska eri bay tiri. ilmihii labada calool galay sohayboy 4 bilood 5 bilood markuu maraayo isagana tabti waa soo laabtay. waxay dhahday mar allaale iyo markii soo laabashadaasi ay dhacday ayaa waxaa ii bilowday kadeed adduunyo. waxaa ii bilowday weji bedel, waxaa ii bilowday maxaa khaldan, waxaa ii bilowday xisaabtan, waxaa ii bilowday gafuurtaag iyo ma aragtay wax aanan garanaynin. hooyadii faraxsanayd, hooyada gurigeyga saacad u imaan jirtay, walaalihii saacad u imaan jiray, waaba la kala dhuntayba. kadib waxaa dhacday bay tiri iskama waalin, jawigeyga waa degsaday, muxuu ahaa caafimaadkeyga. kadib waxaan bilaabay bay tiri in aan meeshii aan ka aadi lahaa dhakhtar in la isanceeyo. sanca soomaali sanca soomaali aan galay bay tiri waa isa soo diyaariyey. waxaan isku soo diyaariyey markii 3aad. wax ii soo socdaba male. ninkii isbedel badanaan ka dareemay. imaanshaha guriga waa yareeyey, la sheekaysigeyga waa yareeyey, farxaddii waa yareeyey. calashaan qof emergency isku bedelay. markii ay maalmo arrintaas igu socdeen bay tiri waxaa ku xigay dhexid. waa la soo dhaxay maalin dambe waxaan ku yiri bay tiri professor soo fadhiiso. gabar aad farxad iyo reereen kusoo guursatay halkan ku keentay baa ah. intaa wixii ka dambeeya isbedelkaani muxuu ku iman karaa, maxaa khaldan, aan ka doodno, aan ka wada hadalno, say wax u jiraan. wuxuu igu dhahay bay tiri wari dhammaantiis gabaray aniga gabar kale aan guursanayaa. durba aniga gabar kale aan guursanayaa. qorshahayguna waxa weeye inaan ilmo helo. at least 32 sanaan jiraa, waa nin weyn baan ahay, aabbaan rabaa inaan noqdo. 2 trip baa wax khasaareen, sababteedana adaa lahaa. sababteedase ku yeelan kartaa. macnaha halkaas waxaa kaaga dhalanaysa xukunka in isla markiiba gabadha lagu ridaayo. war sababteedase ciladan maxaa waay horta. ilan gabadha uur waaba yeelanuusaaye oo dee almost waxa weye waa hawsha waa dhantae. maxaa ciladan keenaya aniga iyo adigana kaxee dhakhtar aan aadno. halkaas may ka bilaabato. waay maxaa keenaya xaajiyad kale. haddana way furan tahay ninka raggaa inuu 2 iyo 3 iyo 4 guursado, laakiin adigoo gabar yariisoo gabadhii marba hadayba uur qaadayso horta ciladii soo ogow. ma dhicin cilad calal aqal ciladda waa ayada. wuxuu yidhi hooyaday waxay igu dhahday gabar kale aan kugu dirayaa. toos buu wuxuu ugu sheegayaa gabadha waxa hooyadiis ay ku dhahdo. dumarkan inta badan maaragtay ama feminismka ama inta badan maaragtay arrimaha dumarka ka hadla waxay dhahaan ninkaasoo kale waxay ugu yaraan mama boy. mama boynimadu ma xuma, laakiin xadka yala dhaafin. waan taageersanaa ninka hooyadiis inuu maaragtay aad madaxa u saarto, laakiin hooyaday ixtiraamkeeda Allah u naxariisto horta Allah u naxariisto. hooyaday ixtiraamkeeda iyo qadarinteedii madaxwe, laakiin inta aan isku dayi karo reerkayga inaan aniga maamushaan isku dayaya oo maaragtay aniga aan hogaamiyo. aniga aragtidaas aan aaminsanahay. maama boynimada nin
kasoo horjeeda maahay nin kasoo horjeeda maahay dhanka kalena way jiraan gabdho sidoo kale Ibrahim oo hooyada maaragtay aad ula magaciisiyo wiilasha ayaga laftirkooda wax jira waay wuxuu yiri hooyaday waxay igu dhaxday qoftaan wax ka soo socdo male aniga ilmaha rabaa inaan arko qoftaan labada mar dhaystay warkeeda ha igu soo qaadin gabar kale oo in adeerta ah baan kugu dareynaa waxay tiri waxaan filay soo in waxani ay tahay wax aan negotiate ka geli karno oo aan ka doodi karno laakiin almost waa wax la soo qaabeeyay oo la soo dajiyay oo gurbaankii uu dhiman yahay iyo meherkii iyo Allah isku calfo ay dhiman tahay waaba diyaarba wixii oo dhan waxaan tamacay bay tiri inaan dhaho warwaaw aniga cilada inay aniga tahay si ku ogaatay horta waxaan aan fiirino xaaladda aan odorosno dhakhtar aan aadno أنا هذا وأزود دياري وأزود عي وأحلام ذا وحيري دقيسو حدي أديكو كوخنا حسن تحي إن جورجان كنو لاتين كنو لو لكن أنا وحبي جاي حساب جورجان إنه بربرو that's the معناه وركي أو كوبان إيه هم قلا ورك آخرية وركي أو كوبان أنا وحبي جاي حساب إن جورجاني أو بربرو أو ولا إنتان كبدن أنا وحن مصي وذكر أبان ربنا نقضى أبان ربنا جسنا هدي كلا أي سنكاهين هذا تكون قناع سنتاهي هدي كلا جو جورجا أنيجا almost قف كلا يعني يجليلنا يا علشان قف كلام سميسنا يا حاس كلام سميسنا يا for the sake of علمه أوكي وركوا إيه حرية يعني بتري وأنا مصي قام بردي قام كويسو بحواي نينكي وانجعل هاي هلو أصحابتو waxaan ku suganahay Konza Technopolis waa mashruuc cusub oo dhawaan aynu furnay oo si idlaanaya waxa ka haray 3 bilood oo kaliya wadada Mombasa Road waxa uu jira 400 oo mitir wax ka yar waxa uu ka soo horjeedaa magaalada teknoolajiyada casriga ah ee Konza Technopolis telefonka numberkan iga soo waca hadda yaa lagaaga hormarin maalgashiga maanta waa mustaqbalka berito hadhow haydin soo heebay iimaadan sheegin waa odaygaygi waxaan bilaabay batteriin iska aamuso waxa la bilaabay battery 2 habeen 3 habeen in la iska maqnaado waxa ba dhacday battery guurki baba dhacay 3 habeen la maqnaa guurki baba dhacay baba la aroosayba waxyaabaha cajiibka waxa ka mid ah battery in walaashiis la ii soo diro si dharka guriga u yaala qaybo ka mid ah ay ugu qaado waxay tiri Ibrahim xanuunka aad dareemaysid ka waran odaygaagii oo aad guriga ku sugaysid oo lagu leeyahay qof kale buu halkaas kula caweynayaayo dharkiisii keen oo boorso inta dhar loogu aruuriyo kala bar dharkiisii la qaado oo xataa adiga aan si fiican lagu salaamin bay tiri waxaasna ay kugu sameynayaan bay tiri dumar xanuunka ugu weyn ba aniga dumar baan ka dhaxlay bay tiri walaashi hooyadii xataa walaashi markay soo gelisay bay tiri guri walaalkeed leey oo dumaashideed joogto oo gurigeedii ah inuu yahay kala ma soo dhaqmayso gab albaabka markaan ka furo waxbaan la rabaa iyo dumaashisee tahay iyo xaalka ka waran iyo ma jirto waa soo gashay waa daldalatay dharkiisii waa baxday qofaa joogo iyo see tahay iyo xaalka ka waran iyo ma jirto laakiin waxay tiri labadii iga dilmay ama caruurtii iga dilmay mid ka mid ah hadduu ama ahaan lahaa joogi lahaa ayadoo la gurgurinaya la isoo socon lahaa marka almost waxay tiri anigiiba waxaa la igu beeray cuqdad ah ciladuba waa adiga markaasaan aniga meel gaara intaan fariistay waxay tiri qumayadu waa adiga musiibadu waa adiga haddii ilmahan kuu hagaagi lahaayeen saan kuuma dhaceen dadkan farxadooda ku ciyaartay aniga inaan dambi isa saaro ninka odagaa waxay tiri arooskiisi wixiisu galay isbuuc buu iga maqnaa waa soo laabtay waxay tiri biilkayga waan helayaa oo taas dhibka ma jiro laakiin biilow yaa ku cunaya biilki waa imaanaya laakiin dee cuntadii inta la kariyo miiska qadada la geeyo guri ilan aroos wey gurigu weli waa cuscusub yahay allahu mustacaan odayga yimaado cuntadii laisla cuno soo ma cid cunto kaa cunaysa male keligaa weeye
biil un baa kusoo dhacaya. Waxay tiri waxaan bilaabay inaan waxba cunin, rooti qallalan iyo shaah, mararka qaar aanan cunin, biyo cad iska cabo. Waxay tiri aniga dhan baa baaba'ay, wajoogaygu uu aad isu bedelay. Waxay dhahday duruuftaas waxaan ku jiraba ninka odaga ahaa. Waxay tiri in aan waxaan bilaabay allabari iyo isdejin kadib, inkastoo aan aad u kacsanahay, waxaan go-aan ku gaaray bay tiri inaan shibdho. Hadduu yimaado cuntadiisa u diyaariyo, u dhigo, qolkayga fadhiga iska galo, taleefankayga iska daadaawado, wax kale aanan samayn. buuqii iyo qayladii iyo maxaasaan igu gelisaa iyo maxaasaan iyo wixii oo dhanba waa iska joojiyey bay tiri. Waan aamus. Wuu yimaadaa bay tiri, dhowr jeer uu yimid. Wuxuu igu yidhi siduu kolley uga sheekeynaya hooyadii asaas tiri. Marka dambe wuxuu yidhi maalmahan waa isbedeshay, aad baad isu bedeshay, go-aan rasmiya baa gaartay. Waxaan u malaynayaa qorshahaagu inuu soo dhammaaday oo aad rabtid inaan ku kala yaacno. Waxay tiri hooyaan la hadlay, familkaygaan la hadlay, xaaladdeedaan u sheegay. Waxaa liigu yidhi bay tiri ninkaaga la macaamil, si fiican ula macaamil. Maxaan la macaamilaa? Arrintan soo dhexgala iyo ma soo dhexgeli karno. Nin haddee maaragtay reer samaystay ma soo dhexgeli karnee, ma dhihi karnee go-aanka adaa iska dhehe, kolley go-aan gaar. Waxay dhahday wuu yimid. Waxaan ku iri bay tiri walaalow, shalay farxad iyo reereen baad igu soo guursatay, maantana heerkaana maraynaa anigii adiga. Haddii duruuftu caynkaan ay marayso oo aad ku qanacsan tahay nolosha cusub, anigana aad igu nacayso ciladaha i haysta oo aan aniga shaqo ku lahayn, xaqna ay ahayd inaan adna soo baarto, annaan soo baaro, isu soo baarno oo waxaan ciladan xagmeynta waxay tahay aan soo ogaano. Taasna aadan rabta gurigan inaad burburisid. Aqbalaadeeda anigu ma yeelanayo, mana aqbalayo. Waxaan kaa codsanayaa intii aad ka soo nafisaysid qoftaas inaad iskala joogtid, halkan inaad igu daysid aniga. Inta allaale inta kugu filan waa fasaxan tahay. Waxay dhahday sidaas markaa dhahaya aniga I was not normal, xoogaa joogaygu caadi maahayn. Waxaan dareemay bay tiri inuuba ay ka ahaydba muxuu ahaa meeshaan rabay roob ma iigu da'ay. Meeshaan rabay roob ma iigu da'ay. Calaashaan inaanba macnaha inuu rabayba masaas ahaa xurrufisho waaba cararayba. Okay. 2 isbuuc baa lasii maqan yahay bay tiri. Hadda 3 isbuuc aa lasii maqan yahay. Markaas ilaa 3 isbuuc aa lasii maqan yahay. Anna keligiyaa joogaa. Mararka qaarkiis waxay tiri markuu meesha shaqada uu ka shaqaynayo uu joogo ayaan cunto u sameeyaa oo u dhiibaa, booda u saaraa. Hadduu dhaho ii soo dhiib, laakiin guri ma imaanayo. Niyo waxay tiri marxaladaasan aan ku suganahay, duruuftaas adagaan ku suganahay. Waxaan u baahanahay bay tiri, waxaana aaminsanahay xanuunka aan wajahayo iyo marxaladda hadda aan ku guda jiro in dad badan oo kale oo ila mid ah ay wajahayaan, ama ay hore usoo wajaheen, ama hadda ay ku guda jiraan. Waxa ugu badan oo aniga i dulmiyey oo i xanuunjiyeyna waxa waaye bay tiri, ninkaas marka laga soo tago isagu dee waa la macaamili lahaaye, hooyo iyo walaashiis waa dumar bay tiri. Waxaa xataa dumarnimo ii dareemi waaye, inaan gabar ugubah oo yar dareemi waaye, gabar yar oo ilmo jecel inay dhasho oo haddana wax ka xumaadeen inaan ahay. Qofku waxay tiri Ibraahimow markii cilado ay ku dhacaan, xanuun oo noocaas oo kale ah, wuxuu u baahan yahay la talin, wuxuu u baahan yahay garab istaag, wuxuu u baahan yahay daweyn maskaxeed, wuxuu u baahan yahay dhakhtar in la geeyo. Laakiin aniga waxaan wajahay bay tiri in aniga xukun liigu rido, waxaan in aniga ka dambeeyo, duruuftan inay aniga maaragtay dul saaran tahay, qofka xun inaan aniga ahay. Sidaa aawadeed waxay tiri cid kale maaragtay in la doorto. Waxay tiri muddo 2 bilood ah baa hadda ka soo wareegatay, reerka kale uu qabo. Ma maqal bay tiri wax uur ah iyo wax la sheegayo oo
ma tiri laakiin caloosha waxay tiri waxa ugu mahay ilaahay awlaadaha siiyo laakiin waxaan aaminsanahay bay tiri ilaahay qafuur raxiim waaye waana daalacanayaa dulmiga socda wuu u jeedaa waxaa macquula meesha uu wax ka raadiyey jiif raaxa leh jawi qurux badan jilicsanaan iyo jamasho jir nastay iyo hurdo cajiib ah sariirta Rabeco ayay juusta kuugu yihiin sariirtan waxaad ka helaysaa 5x6 iyo 6x6 waxay wadataa 2 komidiin iyo sidoo kale tawaleedkii oo leh 8 qaanadood oo aad wax gashan karto waxay ka samaysan tahay hayga dhiman kaama dhamaanaya oo ah geedka mahogany u soo dhaqaaq dhanka Sofa City inta aysan ka dhamaan ama nagala soo xiriir taleefanada shaashada kaaga muuqda raaxo Rabeco ayaa leh inuu wax ka waayo meeshuu farxadda ka raadiyo uu orday inuu ka waayo laakiin ma habaarin soo dhow wallaahi maxaa way horta sheekadan sheeko waxaa waaye maaragtay qiiro leh inta aad ka sheekeynaysana 100 jeeran damcay inaan dhex galo haddana way ogtahay oo is celinay waxaan islaahay waa dhex gelin waxaada isku aruurso ma fahanti horta abaayo waxaan leeyahay haddii aad na daawanayso I'm so sorry in aad maaragtay keliga dhibkaas aan marto aad iyo aadan uga xumahay oo garabna aaweysay sababtoo ah waa xanuun waa dareen aad iyo aad u xanuun badan gabar maaragtay ilmaheeda iyadoo mataqaanaa ay u suurageli weyday yacni ilmahaas inay bannaanka imaadaan oo ka dhicisoobo yacni iyada laftirkeeda loo baahnaa horta waxaan oo dhan Ibraahim oo inta aan la bilaabin iyada horta xaaladeeda caafimaad in la fiiriyo I don't care about ninka I don't care about his mom I don't care about walaashiis yani markaas waxaa la rabay in la fiiriyo gabadha xaaladeeda because hooyo dhan waa aragtay hooyanimada lama heli karo awlaad markaas marka lagu dhaho uur baa leedahay wax ka farxad badan adduunka malaha aabaha adiga uga farxad badan you know adaa qaadaysid aduu ilaahay subxaanahu watacaala kugu beeray waxaasoo dhan marka qofkii filayay inuu awlaadaas maaragtay uu daadihiyo oo bannaanka u yimaado oo uu koriyo oo hooyo wanaagsan u noqoto yaaba ilmihii ay ka soo laabteen marka xanuunka gabadha ayuu hayaa ma ogiye aabbana ma hayo hooyana ma hayo walaalna ma hayo yacni mar walba xanuunka ugu weyn gabadha ayuu hayaa ayaga waxay iska noqonayaan bacda oo haddana Suhaybo la yiri waa kaasoo halaabeen dareenka ay dareemaysa marka abaayo aadaa uga xumahay focus korta iyada in la saaray ahayd sheekada marka hadda waan maxaa la waan taxliilinaynaa horta Ibraahim sideedaba abaayo sheekadan ku dhacday gabdho badan ayay ku dhacday qaarkood ilaahay ilmo ma basiininba qaarna abaayo kale ka soo laabteen bulsho sidaan u nahayna badankeen mar walba eedda waxaa la saaraa gabadha abaayo hadda ciladan ku dhacday waa cilad iyada caafimaad oo shakhsiyan way jiraan gabadho badan oo ilmaha aan hayn karin maaragtay ha oo kasoo daadanayaan farsamo caafimaad qabo markaasoo kale waxaa la rabaa in dhakhtar la geeyo la baaro maxaa sababaya den markaas kadibna treatment loo bilaabo kadibna markan waxaa dhici karta ilaahay inuu u celiyo subxaanahu watacaala isagaa marka horena siiyey mararka qaarna Ibraahim waxaa dhacda gabdho sidoodaba aanan bahelinba uur iyo waxna aan yeelaninba ilaahayba u qadarin mararkaasna waxaa dhacdo marar qaar ilaahay subxaanahu watacaala u qadaray laakiin isaga baahan tahay wax yar oo daweyn ah yaa waxaa dhici karto in iyadi dusha laga saaro ama mararka qaar waxaa dhici karta ninkaba inuusan dhalayninba laakiin gabadhi still dusha laga saaro gabadhi unbaa isbitaalka joogta gabadhi unbaa wareegaysa ragga badanaa isbitaal inay aadaan ma jeclo reerihina maaragtay waxay rabaan wiilkooda inuu guursado gabar kale oo mataqaanaa uu maaragtay ilmo inuu dhalo camal laakiin marna meesha lama soo dhiganayo cilada amay wiilka tahay walow dad qaar oo iska ilbaxayn ay jiraan oo ay dhahaan oo aan isa soo fiirino horta taas way jirtaa gabadhan waxaan leeyahay aniga horta qaladka ugu weyn waxaa ka galay waalidkeed sababtoo waalidkeed markii wacd maxay ku dhaheen ninka la tacaamul adiga gabadhaadii oo xaaladaas ay qabsatay oo weliba gabar laga daba keenay waxaa la rabay kow inay dhahaan hooyo aabbo iyo walaalad in dhahaan soo bax noo imo annaka gabadha anagay nala soo joogi because guriga keligeed ay joogtaa mate anagay nala soo joogaysaa cabaar gabadhooda ay mataqaanaa niyadda usoo dejiyaan counseling ay geeyaan dhakhtar ayaga geeyaan soo ogaadaan xaaladooda ay dejiyaan marka gabadha waxaa isugu dhacday iyadoo keligeed guriga ku noqotay dhankan ay iyada waalidkeedna waxba aysan ka helin dhankan ninkina dee waaba kaba sii darnoo dibi dhal ma fahantay marka gabadhaas wax badan oo dhibaataa ku dhacay waxaa kuu soo hartay arintan oo mataqaanaa ninka uu sameeyey
absolutely adigoo nin rag ah waxaas inaad samayso waa kugu qalad yaqyaqsi gabar hadda aad guursatay ilmihii kasoo laabteen maxaa u diida ninkaas fikirka inuu ku fikiro aan gabadhan dhakhtarka okay dhakhtaragay ilmihii way kasoo daateen saa dhakhtarka in la weydiiyo maxaa dhacay maxaa sababayo haye ma dhici kartaa inaad mataqaanaa wax un aad ku caawiso oo haddii ay u baahan tahay in la daweeyo iyo waxaasoo dhan mogtahay ninka ragga saasaa laga rabay ninka ragga ah sidiisana waa protector waa ninka la rabay qoyskaas inuu difaaco sababtoo gabadha ninka markay guursanayso waxyaabay ka raadinayso waxay deeqo inuu yahay qof wax miiska soo saari karo oo reerkiisa mataqaanaa gaajo aysan dareemin oo dadka aan loo barin nin sidoo kalena ay ku dareemaysa si walba ay noqoto isaga inuu dhabarka aadinayo marka lagu soo weeraraba kaa celinayo oo ku taagan marka isaga kama uusan soo bixin booski ahaa difaac xaaskaaga kama uusan soo bixin waraabuhu ku dhex daaya markaasaa dhinac walba laga soo waraaba raacay naftigiisa waraabasha ku jira exactly ha marka horta ani waxaan leeyahay dadka maangaabka caqligooda yaryahay yaa waxaas ku fikiro arrinta meesha soo gelaysa sidoo kale waxaa ka mid ah mararka qaar badanaa waxaan aragnaa hooyo guri ay dhistay haddana duminaysa hooyo guri ay dhistay haddana duminaysa gabadhaas sida ay sheegtay waxay tiraahday farxadda iyo kaala arag iyo maamadiisa gurigu imaan jireen walaalaha arrinta gabadha marka loogu arkayna nin walbaba maxaa gadaal buu u tegay marka waxay ku tusinaysaa qoysaska Soomaalida sida ay yihiin siday u arkaan gabdhaha yani gabadha in ay tahay amal warshadaasna haddii ay wax soo saari weydo in mataqaanaa nothing ay tahay more than that aysan u arkin waa dadka qaarkiis marka ma waxaan dhahnaa dadka jaahiliinta saas sameeyaan ma dadka ilbaxiinta sidaas sameeyaan kulli research anaga kuma soo sameeyeen laakiin badanaa waa siday u arkaan gabadha waa un machine la raba wax inay soo saarto dad wixii soo saari weysana la baas waa isku dhamaatay sheekada that's why gabadha marka ay gaarto dhalma bax oo kale marka ay gaarto in ay dadka ay dhahaan already dadka ku bush gareynay ninkii goo hadana gabar kale ma aragtay raadi yani qoftaan oo intaas is qabeen isla joogin ama awlaad haways ama aan u haynin baa waxaa la leeyahay ka tago tukalo yar raadso markaasna isagana uu meeshaas waxa dhici karto uu ku baxo tukalo ka yar uu raadsado marka is like in isku bedelaay like warshadan markay xoogo soo saarki dhaaftaba ay joojisaba bakinal dhigaya hay warshad kale hadana la bilaabo hadana warshad kale la bilaabo hadana warshad kale la bilaabo ma fahanti marka waxaan u malaysaa in taas ay nagu badan tahay bulsho ahaan waxa sidoo kale jirta iyadana dadka wada nool u fiirso dumarka gabadha hadduu ninkeeda uu xanuunsado yaa Ibrahim hadduu ninkeeda uu xanuunsado gabadha way la joogaysaa ilaa ay ka duugto haddii tiisa ay imaado waxaa dhici karta gabadha inaysan guursanin meeqadada aragtay hooyooyin oo ku dhahayaan ubadkayga un baan iska korsaday oo museyga markuu dhintay iyadoo markaas xilligaas fursad u heli kartay inay reer kala yeelato laakiin maxay doorbiday waxay doorbiday ilmaheeda inay korsato waxay tir nin meeshaan soo ma gelinayay nolosha ilmahayga horumarsanaya ma fahanti teedii tan ilmaheeda uga tagtay laakiin mararka qaar ragga waxaa arkaysaa gabadhii oo sariirta saaran oo xanuunsan in ay dhici karto in gabar kale uu guursado iyadoo sariirta saaran inay ka naxariis badan tahay laiskuma haysto oo go'aamada noocaas oo kale adaa hadal ku watee ayay gabadhu ma aragtay qaadanayso laakiin Suhayba waxaan usoo joogay rag qaybtood oo xaaskoodu intay naafowday garab taagan oo aan meelna uga dhaqaaqin ilaa ay ka soo caafimaaday garab taagnaa marka dood kama saari karno meesha laakiin waxaan dhihi karnaa waa lagu kala badan yahay maya waa lagu kala badan yahay dee dood kama taagno ilaahi subxaana watacaala 5 farood ma uusan siinin sax sidaan hore kuu sheegayna research anaga kuma aana soo sameyn laakiin bulshadina ku jirnaa sidaan arkan qofka dhinacan ka xiga qofka dhinacan ka xiga qofka ka sheey qofka halkaas sheey inay sameynayaan oo mid ka mid ah geeskaas jiro uu ma arkin uu ka duwan yahay isaga waa iska dareemi kartaa marka bulsho ahaan marka waxa arkaysaa gabadha inay ninka u dul qaadanayso oo saasay tahayna ma taqaan sax waa exactly oo wiilkii ay iyada ma arkin markay dugtay kadib ilmaheeda iska haysato laakiin odaygii iyadoo sariirta saarna mararka qaar inuu dhaho iyadoo sariirta saarnayn oo mataqaanaa markay xoogo yara weynaatana uu ka dhaqaajiyo intuu kale uu aado marka arrinta meesha taalo waxay tahay gabadhan hadda xaaladan ku dhacdo kale waa iyada hadda gabadhan way yar tahay sida loo galay balfiir ninka meeshan uu aaday sida gabadha ay sheegtay waxay tiraahday dulmiga ilaahay uu arkaa waa xaqiiqataas waxa dhici karto taas uu u tagay inuusan waxba ka helinba
dabcan ama hadduu ka helana ilmo fidno ku noqda ay noqdaan yes oo dalkii Waxaa iyo dhici karta- dalkii iyo dadkaba dhiba dhibaayo asaga oo balaayaah waxaa dhici karta gabadhan miskiinta uu ka tegin ilaahay inuu ilmo fiican ka siiyo sabarkeedaas ilaahay inuu ilmo badan oo wanaagsan oo sabro oo diinta iyo isaga iyo dadkaba wax u qabto ay noqdaan marka isaga taas meesha maysan soo dhigin gurbaana loo tumay dumara u tumay dumarka tan kaloo leeyahay waxaa waaye dumarka kale la tartamayo waxaa arkaysaa gabadha haddii ay tahay gabar shaqaysato oo wax soo saar leh gabar kale la tartamayso haddaa aragto gabar mataqaanaa hadda odayga markuu gabar kale uu guursado oo xaas kale uu yeesho gabadhii la qabay bedelka isaga la macaamili lahayd gabadhii kale la tartamaysaa oo mataqaanaa fariimo ay u diraysaa ay caynaysaa oo ay waxay leedahay ilmay dhashay anna waa inaan dhalaa sababtay u dhali la'da saan waay xumaanteedii waxeed u dhani raadin laakiin su-aasha ee meesha la isma weydiinin ani gabadhaanayti marka aan la tartamaayo oo aan waxaanoo dhib aan ku samaynayo fariimaha u diraayo oo aan caynayo oo waqtigaygana aan ku luminayo ninka soo ma guursanin gabadhan ileen ma ogtahay ninka iyada maysan guursanin isagaa guursada qofka la rabay inaad la hadashid xaaladaada kala hadashid danta waxa kuugu jiran aad kala hadashid waa ninka aad wada joogtaan sax taas waaye marka waxaan leeyahay sheekadan iyadan waxay ku dhex jirta dumarka kale naceybka tusinayo gabadhan hadduu xitaa wiilkii uu isdhahay xitaa islaan kalean guursana hadda walow uu dhahayo maamada ii keentay dadka la rabay inay garab istaagaan waxay ahaayeen walaalihiis iyo mataqaanaa hooyadiis hooyo macaan dhib ma laha is okay kala fiican hadduu rabo xitaa wiilka ha guursado laakiin kala fiican markay ciddooda ay ku leeyihiin dhib ma laha ilaahay baa ku siinaayo laakiin gabadha in laga wada goosto asif iyada inay haysa ilmaha oo kale oo la caayo oo mataqaanaa gurigeeda amar la-aan la soo galo wixii raba laga samaysto ani waxay ila tahay wax dumarnimo ku xun inay tahay haddaysan marka ayagaba isku naxariisanayn I don't think inuu rag u naxariisanayo ma fahanti taas waay bulsho ahaanna ani waxaa ila fiican in la joojiyo gabdhaha maaragta dusha laga saarayo wax walbo haddii ay uur yeelan weydo iyadaa qaladka leh uur maxay u yeelan weyday haddii ilmihii ay kasoo laabtaan sidee uga soo laaban karaan ani mid kalan raadsanaya magayse waxaa la rabaa bulsho ahaan qofkan mararka qaar marka aa fiirisi badanaa dadka waxaa u malaysaa inay iskula joogaan for the sake waa isla joognaa nin reer lahaan ahay gabar reer lahaan ahay laakiin beyond that ma jiro wax ilmo ka dambeeya ma jiro like literally waxaa isweydiinaysaa qofkan marka yani can you imagine qofkan hadduusan rabinba ilmo inuu dhalo tusaale ahaanaan kusoo qaada ma aha sheekadan aan ka hadlay laakiin gabadhay ilmaba inay dhasho ma rabto way dhici kartaa soo ma dhici karto qofka marka opinionkiisa inaa weydiisad soo ma fiicno oo aad dhahdo ilmo dhal rabtaa meeqa ilmaa rabtaa hadduu ilaahayna siinaayo ilaa ayaga go-aanka ma gaari karaan maya go-aanka ma gaari karaan laakiin ilaahay hadduuna siinaayo meeqoo kale ka fikiraysaa because dadka laakiin dhaqankeena marka u fiiriso hibo malaha laakiin capabilitygeedaan la kala lahayn gabar waxaa jiri karta 8 cunug 10 cunug korin karto gabar waxaa jiri karta hal cunug kaliya korin karta maskaxdeeda iyo caqligeeda iyo hooyanimada ma samayn karto awooddaas malaha gabar waxaa dhici karta 4 ama 5 korin kartaa dhici karto marka in la isweydiiyo ma fahantay midda kale ilmahan hadda la leeyahay mataqaanada waa in la dhalaa oo ma arkanoo ninka gabadha uu ku cadaadina ilmaa rabaa mararka qaar waxaa iska fiican ilmahan badan oo mataqaanaa la magaciiseynayo kuwa yar oo kooban oo korin kartidoo ka bixi kartidoo akhlaaqdooda diiniyan iyo maadiyan iyo wax walbaba aa samayn kartid bulshadana wax manaafacaad kusoo celinaya hadhow haddana dhibka kaloo ragga jira waxay tahay ayagiibaa hadda saas wax ugu ordaaya ilma rabaan hadhowna wuu ka dhaqaajinaya oo ma biilanayo marka meel la idiin qaado ibraahimow malaha walaalkeeyo marka sheekada meelo kale nala gashay laakiin scenario kala duwan baa soo qaadayna waxaan laysku horta emotional baa tihiin muxuu ahaa wixii idinku soo dhaca waa soo tuftaan hadda qisaan ka sheekeynaynay almost hadda waxaad maaragta si guud dusha uga saartay raggii maya ikaadi macnaa waxaad tiri meel idin raaca male soo heebo 5 farood isku mid maaha waxa weye wuxuu ilaahay sida ay u kala duwan yihiin bay dadkuna u kala duwan yihiin waxaa jira rag ciiddaas ka batay oo dumarkooda ilaa hadda la jooga
dumarkaasna aysan waxba u dhalin bilxaqiiqa Suhayb ama Laakiin qaado ama ciid may inay badan kama yeelin oo ciidaas ka badan inay badan yihiin aan ogahay because of intaa usoo joogay oo aan arkay anigu oo markhaatiga aan ka ahay ayaa waxay tahay wax ka badan ilaa 40 ilaa 50 qof intaan ogahay 50 iyo 40 hadaan waa half maybe 10 maya inta aniga ogahay inta aniga ogahay inta ogtahay de waa inta ku nool malaha boosaaso aad degneed ama garowe aad degneed aniga waa fara badanahay aniga waa fara badanahay waxaan ogahay oday magaalada garowe I hope inay nool yihiin wali asagii xaaskiisa ninkaas nin oo shaqeeya oo ma aragtay runtii oday caana waaye inay just wali nool yihiin baan rajaynayaa asaga iyo xaaskiisa waa dad waayeel ah waxba isuma dhalin wuxuu go'aan ku gaaray oo familkiisa iyo asaga ay isku khilaafeen oo waliba dumar u badan isku khilaafeen guurso iyo ma guursanay hebla boqoradda hadalkiisu boqoradda haddii ay dhali weyday iyadan ku indha kuulanaya hadda waa maasha Allah iyadan ku indha kuulanaya adeerka aadan u laakiin dabciga ah in ay idinka dhaadhacsnaato dumar haddaad tihiin rag noocaasiya ma noola waxaan idin leenahay soo laabta Ibrahim ma noola iikaadi waxaan idin leeyahay soo laabta rag badan oo dumarkooda la dareen ah la damqada difaaca familkooda ka difaaca hooyadiis iyo aabihiis rag kuwa ka difaaca walaalahood xataa walaashiis xataa rag ka difaaca xaaskiisaa jira hadday ku gardarooto marka marnaba ma tirtiri karno meelna loo raacana waynu leenahay Suhayb maanta seefahaynu banaanka isku soo dhiganayna wax badan baynu meel isku raacnay meelaha qaar waynu isku khilaafi doonaa as long as doodeenna haddii oo wax buusan jirin I'm okay with it is okay waxaan rabaa inaan ku daro dulmiga ugu badan dumarka iyagaa isku geysta adigaana ka dhawaajiyey qisadan hadda aan soo qaadanay nabarka ugu xoogan wuxuu ka socday hooyada nabarka labaad wuxuu ka socday gabadha nabarka saddexaad wuxuu ka socday markaa ninka number 3 baan gelinayna asaga because of maskaxdiisa waxaa rogay hooyadiis waa qof dumar ah gabadhan yariista oo halkan joogtana waa dumar kale meesha ay u damqan lahayd saacidi lahayd cunugta yartaa caafimaad geyn lahayd hooyo macaan hadday wax kaa halaabeen dhib ma laha waa hagaagaysaa dhihi lahayd mid kale oo inaadeertiisa soo qabatay qofka kale ee saddexaad ee lasoo qabanayo waa dumar kale iyadoo og ninkan inuu xataa sanad gaarin guurkiisa mid kale waa marka Suhaybo dhan walba idinka isxaganayee isdaaya taas aniga waa sidaan hore kuugu sheegay Ibrahim waaba kuu sheegay waxaan ku iri qaladka waama saarayba maamadiyaan saaray gabadhiyaan saaray gabadhan kale xitaa u guursadeen sidoo kale marna kuma lihiba anaga qalad ma lihin laakiin sidoo kalena raggi laftirkooda qaladkii way ku jiraan sida hadda aad u sheegtay 5 tafrood ilaahay ma simin aa u tirna annagana saas ilaahay noo ma simin adinkana saas ilaahay idin ma simin waa sax waay laakiin waxaan ka hadlaynaa haddaan isku wada haynaa waxaan ka hadlaynaa yacni dhaqankeena guud ahaan aasa mujtamac saan u nahay wax naga qaldan annagoona mindi ku taag noqonin waxa hadda ani adiga u hadlayno waxay tahay adigana gabadhaas waan ka arkayaa sida ugu damqanayso iyo sida ku dhigtay sheekadan hadda inta kaliya ku sheegay laakiin waa igu tiriyay gabdhan aabo u tahay waa isoo wacday wayna kula dhasheen waa isoo wacday iyadoo sheekadan hadda maanta inta ku sheegayna laakiin waa isoo wacday waa ii sheegtay ani adigaba aada uga damqanay aada uga xumaanay gabar yar marka waan dareemi karaa sidoo kale uga doodna hada exactly marka waxaan ula jeedaa waxa waaye qaladka waa lagu wada jiraa asa mujtamac ahaana doodan aan ka hadlayna ma aha Ibrahim Suhayb isku jawaaba laakiin ama rag difaaca ama gabdha difaaca ma laakiin waxaan ka hadlayna waxay tahay asa mujtamac waa inaan bedelmanaa waa inaan isbedelnaa waa inaan dhibka annaga aan isku hayna aan joojinaa waa dadka ma aragtay guryahooda la soo faragelinayo la joojiyaa sida hadalkii ku bilaabo gabar iyo wiil isqaba booskaaga banaan hooya malaha abay booskaaga banaan dhanka wiilashana sidoo kale waxaa jira wiilal ku
dhib qaba sodohdood Ha. oo reerka ay ka dhaqan la'yihiin Ha. gabadha ay ka dhaqan Wuxuu ku la'yihiin siiyaa oo maxaad maanta cuntaa? dhan Mm. ay u ordayso xagga Mm. oo ma arko ninka hadday isqabtaan u ordayso hooyadeed ama walaasheed u Mm. ordayso Mm. oo fidna maaragta kusoo guraya maskaxdeeda yartaa Mm. hadhowna mataqaanaa reerkeeda ay ku burburinayso Mm. marka dhinacyada dhanba Mm. dhib badan baa ka taagan laakiin maxaa looga badbaadi karaa labada qof oo isqaba markay isguursanayaan inay dhahaan anii adiga haddii ay wax dhexdayna yimaadaan Xalisan. anii adiga aan xalsano xalshaasna Wada hadal aan aynu isku bilowno. dayno wada hadal aan bilowno aan Mm. isku dayno inaan xalno Mm. because hadduu hal mar qof saddexaad uu soo galo reerkaaga Mhm. waa kuu dhammaato oo la bilaabo in la idiin kala garqaado waana adduunka waxa ugu xun qofkii maradaada ahaa ilan islaantaada waa maradaada Waa sax. odaygaadana sidoo kale waa Mhm. maradaada Mhm. gabadha maradeyda weeyaan Mhm. haddii marka la dhaho ha loo kala garqaado mase waxaan u kala garqaadaynaa laba dal oo dagaal duulaan isku soo qaadan Ma- waa maya waa si laba nacbaa la qof oo jirsanaynaa. guri isla wada joogto oo Ay. hal weel wax ku cunayo Waa sax. hal gool Nabadooda aan ka seexanayo hal shaqeyno. go hubanayo Mhm. marka waxaa loo baahan yahay waxay tahay ayaga qof iskaga dhow malaha ayaga inay duruufahooda Horta arrintooda bal ha la isku daayo. wanaagooda la isku dhaafo mar haddiiba ay imaado in ay soo dhex galaan dad kale guryaha ku burburaya dhibaato badanaana imaanaysa Maandhow- marka ani waxaan isleeyahay Mhm. Maandhow- nimankaa u badan la Ah. buushgarayaa gabdho guursada la dhahaa mataqaanaa tan ma dhalayso ama tan saan waaye kan saan waaye waxaan dhihi lahaa guursa haddaa rabtid waa haddii adiga dooqaada uu yahay oo dee rabitaankaaga ay tahay laakiin adiga Aad ha kaa awoodid. yimaado awoodeedana aad leedahay aad Yes. qofkan kale kula noolna aadan dulminaynin Uu raalli ka yahay. oo tartiib maaragta aad ka wada Dabcan. hadashaan Dabcan. wixii magaciisiyey laakiin dad kale danahaaga ha u seegi Mhm. 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 Wallaahi Suhayboy, horta gabadha talay kaa sugaysaa. Aniga inay joogto laakiin inay baxdo laakiin aniga waxaan ku eri Ah. kama shaqayn karo qoys burburkiisa. talada anigu waan siinaa taladeeda Ha adiga talada laakiin aniga waxaan ku dhahay Mhm. waxaad qiimaysaa dhibka iyo dheefta Mhm. midka badan Mhm. ku go'aan qaado. Mhm. Laakiin waxaan ku dhahay aniga qoys dhisan Mhm. anoo u jeega dulmiga iyo xanuunka iyo wax walba ma dhihi kari carar iyo balaayo ma sheegi kari. Laakiin qof weyn baa tahay Mhm. wax walba waad u jeedaa Mhm. ma garatay go'aan qaado Mhm. go'aan qaado intaad ilaahay la wakiilato Mm. go'aan qaado waxaana u raaciyey waxaan ku yidhi weli gabar yar baa tahay mustaqbalaad leedahay Mhm. dhabankaagu waa dhalaalayaa da'daad sheegtay weli waa yar waay 25 waa gabar yar waxaan ku dhahay weli fursad fiicana haysataa ilmaha kaa soo halaabay waa lagu maaragtay waa lagu xumeeyey cid kale oo xogtaada lala wadaagay cid kaloo ku rabta ma leh wax ah ha iska dhaadhicinin fursad badan baa haysataa macnaha meelaha qaar baan u iftiimiyey laakiin si guud waxaan ku yidhi wixii tala ah Mhm. aday ku tala si fiicanna waa u dejiyey waqtina waan la qaatay waxa weeye mararka qaarkiis dhakhtar aanan ahayn baan iska noqdaa Dr. Ibrahim marka haye, marka Doctor-i. maxaad adigu bal oran lahayd wallahi Suhayboy Mhm. gabadhaasi waxaan dareemaa mararka qaar in depressionku uu aad ugu badan yahay Mhm. sababtaan u dareemayana waxa waaye waxay leedahay guriga ayuu yimaadaa bay leedahay gurigu yimaadaa wuu iska sheekeeyaa wuu iska baxaa haddana waxay leedahay ha iska baxo hadduu rabo qof iskhilaafsan macnaha qof Mhm. iskhilaafsan muxuu u baxayaa bay marku leedahay haddaad tidhaahdid warbixitaankiisa ha ku mashquulina muu yimaaday ku leedahay Ah. waa isdhaafsan tahay maskaxda because qof yaroo wax weye wax u qaadan la oo lagu gobtay oo Mhm. maaragtay ay muxuu ahaa maxaa la dhihi jiray shinni ay ku degtay Mhm. aniga iga sugaysaa inaan kala bixiyo I know you are so emotional. maya ani abaayo horta waxaan leeyahay ma garanaysaa si walbo laguu soo weeraro si walbo wax lagaaga sheego si walba oo lagaaga dhiga gabar xun inaad tahay taas kama turjumaysa cidda aad tahay gabar wanaagsanaad tahay sheekadaada nala wadaagtay kuma arag balse sheekada dhexdeeda ayaan ka dhex ogaan karaa shaqsiga aad tahay waxaan leeyahay gabar qurux badan ayaa tahay waa yar tahay hadduu ilaahay kuugu talagalay owlaad kale waa dhalaysaa ninkan haddii uu ku biilanayo ku dilaynin
dhib kale uusan kuu geysanaynin gurigiisana uu yimaado ilaahay tala saaro waxaa dhici karta ilaahay owlaad fiican inuu ku siiyo wanaagsan oo meeshaas uu ka goobayaba uu kusoo goobo adiga in lagugu soo hirtaa laga yaabo lagugu soo hirtaa dhici karta ani marka waxaan dhihi lahaa fursad sii isagana waxaan leeyahay haddii lacalla aad tahay ma ku naqaano qofkii gabadhaas sidaas ku sameeyay haddii aad tahayna hadda intay goorgoor kuu tahay gabadhaas maaragtay raaligeli haddii aad labada xaas wada biilan kartana dee gabadha kalena waa guursatay iyadana wanaaji laakiin ani abaayo waxaan dhihi lahaa sabar waa yar tahay waqtigaa sidiisaba dadka bogsiiya waqti sii baan dhihi lahaa haddii markaas kadib waxaan dhihi lahaa wax ay yimaadaan ilaahayna tala saaro koo waxa ugu weyn ilaahayna tala saaratid ilaahay isagaa garanaya sababto ilmahaas isaga haddana ku siiye sababtay haddana usoo daadanaya isagaa garanaya anaga ma garanayno waqtigeeda inaadan gaarinaaba dhici karto lagugu talagalay inaad maarkin ubad hooye aad dhahdo marka waxaan ku dhihi lahaa waqti sii way imaanaysaa insha allahu tacaala gabar yaraad tahay sidoo kalena caqligaaga kaasho haddaba gabar caqli badan baan ku arkaa caqligaaga kaasho and I know for sure waan kugu kalsoonahay si fiican aan kugu kalsoonahay inaad qaadanayso go'aanada ugu wanaagsan talooyinkii muxuu ahaa la talinta ahaa oo aan markaas siinayo waxaa ka mid ahaa tartan gal oo waxaad ku tartantaa bal adigoo u jeeda xumaan badan baan ku iri haddana bal dabiicadaada bedel buuqii hore iyo dagaalkii hore iyo abushaadii hore jooji aamuski jooji hadle waxaa tiri marna waa buuqay marna waa aamusaa waxay liiga baadaan guriga keenaa qolkiygaan galaa bal waxaan ku yiri taa wax ka bedel oo waxaad isku daydaa in aad la sheekeysatid markaa cuntada u keentid farxad gelisid la hadashid hadala fiican kula hadashid shaqada markuu joogo wacdid bal xoogaa isbedel ku sameeya adiga xataa habdhaqankaaga marka waxay ugu dhahday haddaan damco inaan muxuu ahaa cuntada la cuno baahida ku haysa maxay tahay liigu leeyahay maaha gaarkaaga u cuntid adaa cuntada kariye maxay tahay maalintaasaan iska daayay bay tiri mar dambe saxan uu asaga cuntadiisa ah inaan faraha la galo teeda kale kelmadda kaloo lileeyahay waxaa ka mid ah bay tiri shaqaan ka imid waan buuqsanahay walaalo waqti ila qaado ila sheekayso waxaas waxba kama jiraan shaqaan ka imid aan kaa daawad marna ciyaara la daawanayaa marna ama siyaasad ama wax yaa la iska daawanaya maalintii dhan waa la maqay macnaha jaanis ba aniga iima bahayaba laba arrinaan ka dhahaa meeshaas koo horta wuxuu u avoid garaynayo uu diidaya inuu hadlo wuxuu diidaya inay kusoo hadal qaado wixii dhacay because ragga ma jeclo wixii dhacay in la hadlo wuxuu u diidayo inuusan la sheekaysanin horta waa taas tan kale aad tiraahday la sheekayso oo mataqaanaa farxad geli ani waxaan dhihi lahaa farxadda iyada ha isgeliso isaga waa farxsan yahay sax shaquu haystaa reer uu haystaa kale iyada inay farxad isgeliso kow iyada inay iska bilowdo inay farxad isgeliso ay dejiso kowna ay ka fikirta maskaxdeeda maskaxda number 1 maskaxdaada waa in aad maalgelisaa maskaxdeeda waa inay maalgelisaa iyada isdejisaa okay aan ahay dhahdaa farxadeeda ka fikirtaa markaas kadib wax walba isaga iska hagaagaya laakiin suhaybay waxaa jira laakiin can you imagine qof aniga anoo maanta dareemaya Ibrahim in dhibkaas waxaan hadalkaas u iri sugbal positionkaas aan isdhigo gabadhaas wixii lagu sameeyay yarta ah haddii aniga maanta lagu hadaan istaaga meeshaas sideen ugu qoslaa qof mataqaanaa in waxaas igu sameeyay sideen ula sideen ugu aan okay wax walba iskaga dhigaa no ko ani inaan iska shaqeeyo waa nafsiyan waxa taas uga jawaabaya waxaa jira dumar badan oo laga tagay ayagoo wanaagsan reerkooda dhaqanaya ilmahooda korsanaya ninkooda u wanaagsan meel kale in laga aado dumarkaasi dhaxday xirteen waxay bilaabeen isbedel waxay galeen tartan ugu dambeynna ayagaa lagu soo hirtay iikaadi iyadaa lagu soo hirtay meeshii kale ee la yagleelay oo la dhisayna waa burburtay ugu dambeynna taajkii waxaa loo saaray qoftii sabartay marka mararka qaarkiis Suhaybo taladu way ku fiican tahay in la yiraahdo warbal ku day isdejintaan iyo isbedelkan iyo hadal macaanidan wax isbedela inay keenaan ayaa laga yaabaa waana midaan dumar badan hadda qisooyinkooda haddii la raadiyo la helayo oo aan qaarkoodba ogahay in ayaga dib loogu soo laabtay
iyadoo dadka hataa dacaayadeynayaan wax baktiday weeye wax waxa weye aan damiir lahayn weeye waxaan dad lahayn ugu dambeynna la arkay iyadoo dib u dhalaalaysa waa badan yihiin laakiin waxaan ula jeedaa Ibrahim isku meel un baan ula jeedaa aniga adiga laakiin waxaan ula jeedaa qofka bini aadankaba sidiisa wuxuu mataqaanaa wanaag samayn karaa uu farxi karaa isaga markuu faraxsan yahay haddii aan ku dhaho maanta anoo faraxsanayn baa adiga kuu qoslaya munaafaqnimo waay marka ani abaayo waxaan ula jeeda waxay tahay kow iyada inay iska shaqayso maskaxdeeda ninkan mataqaanaa wuxuu rabaa sameeyo guriga yacni ha ku soo dhaweyso cuntadiisa ha u karsa hadday rabto xitaa aysan la cunin cuntadiisa waqti weji fiican gafuurtaag uusan jirin iyadana sidaan ka arkaya sheekada Ibrahim sidaad u sheegtay gabar waxay ila muuqataa degan qaylo badnayn iyo ila muuqataa laakiin iyada koomba la geliyey marka waxaan dhihi lahaa dhinac walba gantalka soo rideen absolutely marka waxaan ula jeedaa adiga kow ma arkano number 1 adaa adiga iska shaqay kadibna wax walbana sida Ilaahay ugu talagalay ayay noqon sayban waxaan ku soo gabagabeyn lahaa inaan la dareennahay bil xaqiiqa gabar walba oo dhaqanka ama dabeecadda noocan oo kale lagu dulmiyo ama wiilka hooyadiisa ha dulmiso ama walaashiisa ha dulmiso ama asaga ha dulmiyo ha u soo raaco waxaan rabnaa inaan dhahno walaalayaalow waxaad tihiin dad adag xoogaa waxaa laga yaaba guurka inuu idinka xumaaday laakiin dad adag oo wanaagsan baa tihiin sabra sadkiina waa helaysaan waqti fiican ayaa idiin soo socdo qurux badan nolosha haddaad wax ka bedeshaan laga yaabe tii hore in imtixaan rabbi ay ahayd oo meel qurux badan aad u socotaan marka gabar walba oo xaas soo noqotay oo ilmo dhali weyday ilmo ka soo xumaadeen lagu dhibaateeyey waxaan leeyahay maalmahaagii quruxda badnaa way soo socdaan anigana waxaan kusoo gabagabeynayaa quus ha istaagin rajada mar walba way jirtaa qofka bini aadanka markuu rajo dhigo waa marka uu baaboo as long as aad nooshahay oo aad neefsanayso Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ku siiyo qofna aadan uga baahnayn inaad u daba fadhiisato dhahda neefisi ya ama mataqaana inoolay mataqaana xor ayaa taa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaanu ku siiyay marka waxaan leeyahay gabar walba oo xaaladda abaayo kale ku sugan ama tu walba oo dareemaysa dhinac in lagu muusay waxaan dhihi lahaa raja jirto there is a light at the end of the tunnel aad mahadsantiin asxaabta sida wanaagsan barnaamijkan aad inoo qayb qaadateen Ibrahim aad u mahadsantahay asxaabtada maanta bambam xogaha maanta waxaad moodaa markii ugu horeysay inay tahay ina xogaha laakiin it was very interesting ani aad waxaan isla xogaha ma ku sii garaacdaa waxaan arin emotional ka hadlaysaane mar kale soo yiba fursad ku raadi insha Allah barnaamijka kala aad mahadsantiin asxaabta salaamu alaykum rahmatullahi wa barakatuh ku soo dhawow Sofa City waa halka aad ka helayso dhammaan waxa uu gurigaaga u baahan yahay fadhi sariir miiska qadada TV cooker mashiinta cabitaanka lagu shiidayay kabadi ayucayna iyo sidoo kale microwave-kii aad ku kululeysan lahayd cunada ha iloobin farxadan kale qiimo dhimis weyn ayaan ku jirnaa 20% elektroonikada 40% furniture-da iyo sidoo kale 50% kabadiyada ama rogaga dhulka la dhigto nagu soo booqo xarumaheena oo ku kala yaal suuqa Istanbul ground floor-ka iyo sidoo kale xarunteena kale oo ku taal dabaqa deek ee ka soo horjeeda BBS Mall qaybta hoose wixii faahfaahin ah nagala soo xiriir taleefanada shaashada ku qoran